وقالكن isaga waxaan kugula wadaagi doonaa arrimo aad iyo aad u xiiso leh oo ka saacidaya sidii arsaaq wanaagsan oo baraka leh aad u heli lahayd habeenii maalin waxaanu fikiraynaa jaamacadaha waxaynu galeynaa ugu baxaynaa waxaynu ku CV-aynu diyaarsanaynaa waxaynu dadka isaga dhaadhicinaynaa in badan oo kamid ah uga waramayna CV-geena iyo awooddeena iyo kartideena sidii aynu heli lahayn risiq xalaal ah oo wanaagsan oo inagu filan haddii aad reer leedahay adiga reerka kugu filan haddaad iskaabula tahay adiga naftaada ku filan hadhowna mustaqbal reereed aad ku dhisan kartid soo sidaa maaha sida awgeed waqtigan hadda aynu joogno aad iyo aad ba muhiim ay tahay inaad ogaato maxayba risiqa marka laga hadlaayo baraka galiya maxayba koriya maxayba balbalaariya maxayba mid shalay u bilaabay aad u arkaysaa isagoo maanta inta soo shirkadood leh maxayba aad u arkaysaa mid waxa way weligiiba soo jireen haddana wixii su'aalay goodhi dhaafay maxayba aad u arkaysaa nin dhalinyar ah oo isku filan halka mid kale odayo weyn oo da' aad arkaysid inuu yahay nin dadka ku dul nool wax matara wax ma qabsada ah sida awgeed maxayba risiqa baraka galiya ayuu si fiican inaga waramayna ee ka faa'iideysi fiican marka ugu horeysa waxa muhiim ah inaad ogaato ahbaabi in risiqa markaynu ka waramayno risiqu ma hal akaliya risiqu wuxuu noqon karaa waxa way aqoon uu Ilaahay ku siiyay wuxuu noqonayaa caafimaadka aad haysatid wuxuu noqonayaa lamaano wanaagsan wuxuu noqonayaa ubad fiican wuxuu noqonayaa waalid wanaagsan oo soo koriyo wuxuu noqonayaa asxaab baraka leh wuxuu noqonayaa guri aad ku jirto wuxuu noqonayaa amni aad haysatid wuxuu noqonayaa iimaanka iyo islaamka u farabadan risiqo laakiin hadda kaynu ka hadlaynaa wakil lacagta weey barakada markaynu ka hadlayna barakada waxa loo jeedaa waa waxa weey waa wanaag aan xad lahayn oo Ilaahay ku galinayo oo barakadu waxa la yiraahdaa waa jundi iyo ciidan kamid ciidanka Ilaahay hadii jirkaaga Ilaahay baraka ku galiyo daadaada iyo cimrigaaga dheeraan caafimaad iyo awoodna wad heli doonta aan weliga ka dhamaanin hadii Ilaahay cimriga waxa weey waqtiga uu ku galiyo barakada waqtigaaga baad si fiican uga faa'iideysan kartaa heer waqti yar kooban aad ku qabanaysid wax dadku aanay boqolaal sano aanay ku qaban markuu Ilaahay waxa weey uu ku galiyo waxa weey barakada dhaqankaaga waxaad noqon doontaa qof waxa weey dadka oo dhan ay jecel marka barakadu waa shay aan la taaban laakiin la dareemi karo raadadka ay ka tagayso وكو سي هدبا قفكو أرزاق بركيسن وإلهي وهلو ثلاثة كوبادو حيتاي وإنه قفكو إلهي كعبصدو إن إلهي كعبستيد الله كعبس جوا الله بارهنون وحي لو فرينا السماء وحي لو جود دين إسكيلالي إن بدن بان أوجهي أو عند السنكرين ثلاثة أيضا عند السنكرين أورنتون هو وعد يوان لكن أقول شيخو هل كودي متوي هدي قفكو أنو إلهي كحدنين هدانو قفكو أنو الله كعبس لهين وحهو بالله إن رزقيسو أنو هوستيسو أنو دافي isagoo intuu doono oo lacag ay soo galiso hadana barakada ayaa laga siibiya mid kale wax yar haystaana waxa weey Ilaahay ku filaysiinaya baahiyihiisa dhan oo ka fayniya marka ku dadaal in la kacabsigaaga mar walba aad hagaajiso quraankan waxa la inoogu tilmaamay in waxa weeye qofka Ilaahay ka cabsada waxa weey Ilaahay faraj ayaa u furaa laba arinka labaad waxa weey waa kalahaada oo qofku inuu subaxii ka laho oo aanu hurdada aanu ku celin ama aanu noqon qof hurdo badan weey markaas ku dadaal subaxii inaad ka lahdo ama u kala laha ganacsi aad leedahay ama u kala laha mashruucad gacanta ku hayso ama u kala laha waxa weeye meel kale oo ka shaqeynaysid ku dadaal ka lahada rasuulkuna kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay in ummadda islaamka loo barakeeyay waxa weeye ka lahadeeda dadkii horena waxa kamid ah nin subax hore intuu ka laho Ilaahay waxa weeye ku arsaaqay arsaaq aad iyo aad u wanaagsan sida awgeed kala had waa dahab iyana laga dheeray marka saddexaad waxaan ku leeyahay waxa aad shaqaysanaysid ama mushahar qaado ama mashruuc gacanta ku hay ama tijaarada ganacsi hayso ku dadaal inaad wax ka bixiso subax kasta marka uu bilaa waagu saa u bariyo ayaa laba malag baa soo taga waxaan ku duceyn Ilaahu mid kasto wax bixiyana khalaf si waxa wax u bedelo wanaagsan si mid kasto oo waxa weeye wixii aan bixina Ilaahu ka tirtiro ka baabi sida uu geeyay adoonso waxa wax ka badan inaad hesho waxaad ku helaysaa sadaqada maalintaada sadaqada wax ku yeelo 24 saacadood yaani ku dhaafin adigoo aan wax sadaqa ah aan bixin naftaada ku challenge garay arintayda quraanka akhriso quraanka waxa loo ognahay waa kitaab barakaysan quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu noogu sheegay inuu kitaabka quraanka uu yahay mid baraka leh oo Ilaahay uu barakeeyay sida uu geed ku dadaal inaad akhrido ama gelinka hore akhri ama habeenka akhri ama duhurka iyo casarka akhri xilligaad akhriyeysaba ku dadaal inaad quraanka akhrido والله أنا بينكم شيئين قرآن كوحيالك بركة بدن أنا قم أعرف وح كبركة بدن قرآن كمارك ما أنت حزبك قرآن كأي تهين أنا أخري أي دافته وحن كده رمي ما أنت تدين وحكسيهن سدا وجد
warhoy quraanka baraka culus baa ku jirta ka akhri intaad garanaysid shardi ma inaad wada akhrido laakiin inta aad garanaysid maalintaada quraanka yaani ka madhnaanin waxyaalaha risiqa barakeeyay waxa kamid ah salaada oo nabi ismaaciil alayhi salaam markuu ilaahay quraanka kula hadlay suuratu taha waxa uu tilmaamaya nabi ismaaciil ku leeyahay ehelkaaga amar salaada kuna sabir adiga risiq kuma weydiisanayno annaga ku arsaaqina marka waxaad arkaysaa inay isku xidhan yihiin salaada iyo tukashadeeda iyo inaad ehelkaaga dadkaaga aad salaada amarto iyo risiqa oo ilaahay idin barakeeyay inay isku xidhan yihiin badalka ka arkaysa salaadu ayaa risiqa kordhisa oo barakeysa salaadadan ku dadaal waayahay qodobka ku sii xiga waxa uu leeyahay ma doonaysaa in cimriga lagu kordhiyo ma doonaysaa in risiqa lagu barakeeyo haddii labadaasiba ay tahay jawaabtoodu haa waxaad ku dadaashay inaad qaraabadaada xidhiidhiso rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka doonaya in cimrigiisa loo kordhiyo loo dheereeyo arsaaqdiisana loo badiyo qofka doonayo qaraabadaada xidhiidhi qaraabadaadana waxaa kow ka ah hooyada iyo aabbaha iyo inta kula dhalatay iyo kolba ku soo xiga ayaa qaraabadaada ah ku dadaala inaad xidhiidhiso xidhiidhintu booqashay noqon kartaa ka warhayn bay noqon kartaa la hadal bay noqon kartaa marka mar walba ku dadaal in maalintaada aad ku yeelatay inaad ciiduun aad xidhiidhiso ciddaasi ciday doontaa noqotay qodobka ku sii xiga waa inaad istighfaarta aad badiso oo qofka waxa la yiraahdaa istighfaarta badiya hammi kasta iyo warwar kasta rasuulka kaleey salaatu wasalaam sidoo inoo sheegay hammi kasta iyo warwar kasta qofka soo mara ilaahay waxa uu ugu bedelaa faraj buu ugu bedelaa meel aanad ka filanayna arsaaqdu way ka soo galaysaa sida ugu dhow inaad ku dadaashaa inaad arsaaqda waxa way istighfaarta aad joogtayso oo aad astaghfirullah ay ku noqoto dhaqan joogta maalin walba intaad adigu aad ka akhriisid inta ay doonto noqotay ugu dambeyn ku dadaal in waxaad ku shaqaysanaysaa xalaal ay noqoto rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay wax kasta oo waxa weeye sidii xaq ahayd lacag kasta oo qofku waxa weeye sidii saxda ahayd oo u soo qaatay oo xalaal ah ilaahay uu barakeeyo lacag kasta oo si xaraan ah loo soo qaatayna ilaahay barakada waa ku siiba hadiiskaasina ku dadaal in lacagtaad iyo waxa ku soo galaya saaqda waxa weeye say u barakowdo si xalaal ah weyn kugu soo gashaa in badan baynu arkaynaa dadiyo ku jira dawladaha dadiyo ku jira waxa weeye meelaha kale la duwan ee laga shaqeysto hase haatee waxyaalaha xaraan ku shaqeysta ama lacagtu si qaldan ay ku soo gasho oo waxa weeye madowga iyo foolxumada iyo baahiduna iyo waxa weeye wax la'aanta ka muuqata miskiinka yar biyoolihi uu dhaamo ee sida xalaasha u shaqeysanaya marka xalaashu ha noqoto waxa weeye waxaad ku shaqeysanaysid xaaraantana iska jir talooyinka yar yar ee fudud waxaan rajaynayaa sax way fudud yihiin laakiin inay raad weyn ay kaga tagto hantidaada iyo shaqadaada iyo lacagtaada iyo maalkaagaba waxaan rajaynayaa wax badan ay ku tartay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.